بسم الله الرحمن الرحيم فيديوغان waxa uu noqonayaa fiidiyoogii saddexaad fiidiyoogan waxa aan rabaa inaan uga hadlo qaabka loo isticmaalayo qaybtan ay ku qoran tahay academy fiidiyoogan waxaan ugu hormarnay qaybtan academy-ga waa marka aad systemka soo gashid waxa u baahan tahay galaasyadii iskoolka inaad soo diiwaan gelisid marka waa inaan ku hormarnaa qaybtan ay ku qoran tahay academy haddii aan wax yar dib ugu noqdo fiidiyooyadii hore labadii fiidiyo hore waxaan kusoo baranay qaabka programka loo soo galo qaabka maaragtay userka markaad soo gashid aad isaga bedeli lahayd passwordka hore defaultiga lagu siiyey iyo qaabka aad u isticmaali lahayd dashboardkan oo ah hawl fududays oo maaragtay xogtaadii iskoolka oo dhan kuusoo koobaysa marka fiidiyoogan waxaan rabaa inaan toos ugu sharaxo qaybtan ay ku qoran tahay academic marka waxaan u baahannahay inaan soo diiwaan gelino galaasyada uu ka kooban yahay goobtaada waxbarasho ay ka kooban tahay hadday noqon lahayd goob iskool ah macad ama jaamacadba marka waxaan u baahannahay inaan ku horumarno galaasyada intaanu soo gelin galaas kasta wuxuu leeyahay section macnaheedu waxa weeye form 1 oo kale wuxuu ka kooban yahay form 1A B iyo C oo ah 3 galaas form 2 wuxuu ka koobnaan karaa 4 galaas oo ah form 1A form 2A form 2B form 2C form 2D oo 4 galaas marka waxaa u baahan tahay sectionada inaad ka soo diiwaan gelisid marka hore halkan marka si aan sectionada usoo diiwaan gelino waxaan ku dhufaninaa sections markaan ku dhufanno aad bay u fududahay wuxuu ku leeyahay section name-ka halkan ku qor saa ujeedid waxaa inoogu jira laba section oo ah section A iyo section B marka waxaan u baahannahay inaan kusoo darno sectionno kale waxaan dhahaynaa section C waxaan kaloo kusoo daraynaa section la yiraahdo D marka halkan waxaa ka samaysanaysaa wixii section uu iskoolkaaga uu leeyahay oo dhan haddii F iyo H uu leeyahay halkan ayaad kasoo gelinaysaa sidoo kale haddii iskoolkaaga uu leeyahay oo kale galaasyada form 4ka iyo form 3ga oo kale waxay u kala baxaan artist iyo science halkan ayaad kasoo gelinaysaa waxaad leedahay A artist B science iyo wixii la mid ah markaad sectionada dhan soo wada diiwaan gelisid ba waxa u gudbaysaa galaasyada markaan ku dhufatid wuxuu kuu soo saarayaa isla khaanad kale oo ah maaragtay inaad soo gelisid galaaskii ama diiwaan gelisid galaas cusub galaasyada markaad diiwaan gelisid dhinacan ayuu kaaga soo saarayaa saa ujeedid waan u tegi doonaa marka waxaan diiwaan gelinaynaa galaas cusub la yiraahdo form 4 galaas la yiraahdo aan diiwaan gelinay saa ujeedid form 4 haddaan soo diiwaan gelino oo safe dhahno inaga yeeli maayo sababta wuxuu leeyahay form 4 inta section uu ka kooban yahay dooro uu leeyahay saa ujeedid marka waxaan dooranaynaa form 4 inta qaybood uu ka kooban yahay form 4A form 4B form 4C saddexdaas ayuu ka kooban yahay haddii maaragtay 4 galaas ka kooban yahayna waad tigta ayaa saaraysaa inta galaas ka kooban yahay haddii aad galaas ka reebaysid horey u dooratayna tigta unbaad ka qaadaysaa wax fudud marka form 4kan wuxuu ka kooban yahay saddexdan galaas kadib markaad samaysid ayaan dhahaynaa safe markaad dhahdid wuxuu ku leeyahay waa lagu soo geliyey galaaskaagii marka si aad u ogaatid in galaaska soo galay wuxuu kaaga soo baxaya halkan saa ujeedid wuxuu ku leeyahay form 4 wuxuu ka kooban yahay saddexdaa section galaasyada hore aan diiwaan gelinayna waa form 2 wuxuu ka kooban yahay hal galaas form 1 wuxuu ka kooban yahay 2 galaas marka qaabka loo soo geliyay aad ayuu fududeeyay waa qaabkaas marka waxa aan rabaa galaas hore oon diiwaan gelinay tusaale ahaan form 2 oo kale hal galaas buu markii hore ka koobnaa iskoolkii baa weynaaday 2 galaas baan ka dhignay oo kale marka mar labaad baan waxaan ku qoraynaa form 2 haddana aan soo dooranaynaa waa maya waxaad tegaysaa galaaskii kuu samaysnaa waad dul tegaysaa geeskan ayaad imaanaysaa calaamadda qalinka ama editku ay ku qoran tahay baad ku dhufanaysaa markaa ku dhufatid wuxuu ku keenayaa galaaskii buu ku keenayaa marka galaaskii cusbaa ee galaaska lagu soo daray unbaad tigta saaraysaa waxa weeye form 2 kaliya ahaa markii hore waxaad leedahay form 2A uu ahaa markii hore form 2B baan kusoo darnay tigtaan saarnay safe baan marka sidaas ayuu noogu noqday saa ujeedid 2 galaas sidoo kale galaasyada kale oo dhanna waa sidaas oo kale u dhid garayn kartaa galaas cusub haddaad kusoo daraysidna halkan ayaa kaga soo daraysaa marka fiidiyoogan waxa uu ahaa qaabka galaasyada loo soo diiwaan geliyo fiidiyooda kale waxaan ku arki doonaa qaabka loo isticmaalo qaybahan oo dhan markii aan gaarno sababta waxa weeye hadda ma isticmaali karno oo waxa weeye waxaa khasab ah in arday soo diiwaan gelino iyadoo arday inoogu jirin qaybahan kale ma isticmaali karno marka fiidiyoogan waa fiidiyoogii saddexaad oo ah
maaragtay video aad muhiim u ah. haddii ay jiraan waxyaabo aad fahmi weyday waxaad si fudud noo soo weydiin kartaa. haddii ay jiraan waxyaabo aad fahmi weyday videogan qaab fudud ayaad noo soo weydiin kartaa. waa mahadsantahay.